shakhsi ugu sarreeyo Kismaayo waa fahmi kartaa dee oday yaa wuxuu ka qaybgalahayaa xaflad jaamacadeed oo dhici rabta jaamacadaas ayada soo ugu Cabdullaahi iyo xilliga dhacayso cabdirisaaq cabbaas sheekh yuusuf magaciisa xarakiga ahna uu yahay Cabdullaahi waxa uu ahaa macallin wax ka dhiga iskuulka aqoon bile sidoo kalena dhigta jaamacadda Balaasma faraceeda magaalada Kismaayo dhawaan waxaa gacanta ku soo dhigta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Jubbaland xilli uu abaabulayo weerar la qorsheeyay in laga fuliyo xarumo muhiim ah iyo afduub ballanku uu ahaa in laga fuliyo magaalada Kismaayo inta aanan guda galin xogta dhabta ah ee cabdirisaaq xilligii uu ku biiray kooxaha argagixisada cidda kala shaqaysay shaqooyinka uu soo qabtay halka uu tababarka ku soo qaatay iyo qaybta uu qaabilsanaa horta cabdirisaaq isagu waa kuma bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa cabdirisaaq cabbaas sheekh yuusuf sheekh cabdille gaashaan arrimay waxbarashadan ka yar sheekeeyo ani marka hore waxaan ka imid gobolka Gedo Bareere tuulo la yiraahdo Mardhaa ayaan ku soo qaatay dugsigii Quraanka Kariimka ah macad ururka al-shabaab ay ka fureen degmo la yiraahdo Sirley tuulo la yiraahdo Sirley yaan macad ku qaatay muddo 9 bilood ah wixii ka dambeeyay waan ka soo tagay gobolka Gedo waxaan imid magaalada Kismaayo halkaas waxaan ka bilaabay marka la dugsiga Quraanka macad diini ah iyo iskuul dhamaantii iskuulka kadib iskuulka aqoon bile waxaan ka noqday macallin sidoo kale waxaan noqday arday jaamacadeed jaamacadda Balaasma University waxaan ka dhiganahay kulliyadda IR International Relationship xiriirka caalamiga barafadii iyo waxyaabo yaryar oo si online ku marwaa jirtaa laakiin heerkii waxbarasho waa sidaas haddana waxaan ahaa macallin iskuul aqoon bile aniga iskuulka aqoon bile waan ka dhigahay maadooyinka galabtii aan ka dhigahay tarbiyada islaamiya suuxiina waxaan dhigahay maadada xisaabta iyo juqraafi cabdirisaaq oo ay argagixisada u goran og yihiin Cabdullaahi waayihiisii degmada Baardheere ee gobolka Gedo sanadkii 2016 ayuu soo bilowday xiriirka kala dhaxeeya isaga iyo khawaarijta jacayl iyo muxubba ayuu u qabay inuu qayb ka noqdo kooxaha caqabada ku ah nabadda Soomaaliya gaar ahaana waxa uu jeclaa in uu xubin muhiim ah ka noqdo waxa ay ugu yeeraan amniyaadka oo ah kuwa fuliya dilalka qorshaysan afduubka iyo caburinta shacabka laga soo bilaabo sanadkii 2017 cabdirisaaq magaalada Kismaayo ayuu arday iyo macallinba ka ahaa noloshiisa waxay ahayd mid isku toosan balse weli waxa uu dareemayay jacaylka uu qaba argagixisada si uu u xoojiyo rabitaankiisa ku aadan ku biirista maleeshiyaadka arxanka daran waxa uu mar walba akhrisan jiray buugaagta ka hadlaysa xogaha la xiriira mukhaabaraadka ama xogaha sirdoon waa mahadsan tahay horta xilligii macaahidda al-shabaab aan dhiganahay macadkaas magaciisa waxaa la dhihi jiray Cumar bin Khadaab ururka al-shabaab aasaasay fikri ahaan ani halkaasaan ururkan iskala soo jaan qaadnay macadkii markuu burburay oo magaalada Baardheere ay qabsatay dowladda Soomaaliya kadib macadkii markuu burburay ani tuuladaan u laabtay Mardhaa meesha aan deganayn dabcan way soo wici jireen oo beer anaga aan lahayn bay ugu imaadeen sargaal amniyaad ka tirsan oo dabcan xil hay sarnuka aan u malaynayo iyo 2 arday ah oo macadka asal dhiganaynay halkaas oo abaar aan ku sheekaysanay xogaa lacagan meesha uu siiyay marka way soo wici jireen oo waa la tashkiilin jiray laakiin xilligaas aniga kuma qanacsanayn inaan ku biiro ururka al-shabaab marka hore waxaan inaan waxyaabo badan fahmo oo waxbartaan rabay laakiin mustaqbal ahaan ururka inaan ugu biiro markaas fikir ahaantayda way igu soo dhici jirtay intaa kadib markaan Kismaayo soo aaday oon gobolka Gedo ka soo baxay Kismaayo imid tashkiilintii weli way la socotay way tashkiilin jireen waa la soo wici jiray ilaa iskuulka aan ka dhimanay markii aan imtixaanka dowladda sameynayay waxaan ku sameeyay iskuulkan Khalid bin Waliid oo fonforka iyo sawir baa laga qaaday aan aweyn waxbaan ka weyn
marka habeenkii baa lagu soo diray WhatsApp-ka qof ay u qoranta magaca Abu Khalid Soomaali marka absaaq iskuulka hadda dhameysay kal maxaa ku xigo ku qorsheysan hadal noocaas marka aniga ahmiyad baan siino qofka maxay islaha sawir ka qaaday ismaajo kulli wajib la mushqaya marka waan ka gaabsanaa marka xitaa carruurta xaq iga soo wacayso ma aamin jirin ilaa aniga aan toos ana isku geeyo oo dadka aan la soo kulmahay si xaqiiq anigu weyn al-shabaab iyo noogi qof soo wac marka ayada xog ma siin karin inta kadib marka jaamacadan Balasma iyo waxay siisay scholarship oo u madcinaya jaamacadda muddo waxaan dhiganahay 1 sano iyo bar marka imtixaankii xilliga la gelahay oo kale marka waxa ay xirmay iskuulka ay xirmay iskuulkii uu xirmay oo imtixaanka ardayda galeen jaamacadda isku xilal galeen imtixaanka mugta jaamacadda iskuulka markuu ay xirmay marka waxaan go'aansay inaan baxo marka bilowgii sanadkan ayuu ka anbabaxay magaalada Kismaayo isaga oo xiriir la sameeyay nin uu sheegay in uu adeerkiis yahay laguna magacaabo Cabdiwahaab Xasan Xaashi oo argagixisada qayb ka ahaa waxa uu socdaalkiisii koobaad ku tagay degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe hal isbuuc oo uu joogay lana kulmay xubno ka tirsan argagixisada waxa uu uga sii gudbay degmada Jilib ee isla gobolka Jubbada Dhexe halkaasi oo uu kulamo kala duwan kula qaatay xubno sarsare oo ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta gaar ahaanna kuwa ay ugu yeeraan amniyaadka intii uu Jilib ku sugnaa waxa uu soo qaatay tababar lagu barayay sida wax loo basaaso dilalka qorsheysan isticmaalka hubka noocyadiisa kala duwan iyo afduubka dadka bulshada muhiimka u ah waxaan u socdaa al-shabaab inaan soo qorto oo markaas ani programka aan rabana aan isla fahmo hadii laakiin wax markaas ani aan wato oo kale aan isku fahmi weyno inaan isaga gaabsaare gelitaanka al-shabaab sababtoo aniga qof marka al-shabaab way istashkiilin jireen waa sax laakiin qof markaas ayada inuu iskaga bari rabo ma ahan qof waxaan ahaa wax ku socdo mabda يعني فكرة مثل رأس وطاق قف وحنا هوطي يعني برنامج خاصة أو أنت إن إسكو فهمان ربك دم الله شغال أساسا فيها واحد قوان ستين الشباب كبيرتو ستة قوان صدها مركا عندي ما خص بين أنا قوان صدي أنا بحاول ماشي أقوم به واتهاي مركا إن أب بحضو الشباب أطقتو يا كعلى شقي حاجات مرتي يجي أنا ذا تكتي يجي أنا شرحت كبح والله هرتا marka laga soo tago tashkiilinta hore oo dad khaas ah tashkiilinayeen horta asliyan dadkii tashkiili waxa kamid ahaa Allah naxariistay macallin isu ahaan jiray oo dhigi Cabdi Fataax oo ku shahiiday Saakow ee duqeyn diyaarado oo dhowr markii soo wacay iyo xogaa wad caasisay manugu salaato xana caasa isaga markuu dhintay kadib marka tashkiilin badan kaas ma helin لكن دي مركز أنا وسماهن قف سكران أنا مبدأان وحن وعي من أدير كيا مركز وحن كوبي أنتاس أنا رجعت أنا كوبي ربع أنا أنتاس قال قاعد وأصلا قابس مركز رودي دي أو يعني طبعا فكرهان وموسي جديد لكن حوس لها من كمان أنا يروح هدو هدي وحكو صبحان أو كلام أديك هدو قبصة يقول هذا أنك أساسا تشكيل مش جاي مركز أسوي رجع بصدي وضمن لكن من كل عددي ساسا مركي أور سو كان حري أنت مركي ينقارك راعي تاريخ مركي لبعتين لبعض بشي هراء كوبت بشي كوبت ها لبعتين لبعض أكسماء كبحت أكسماء كبحت أوكي أكسماء كبحت لبعتين كجنوب الرواية حاجات سي مرتين تيجانا ذا تكتي ملها تيجا كلا تي جارياس مركان راعي ساكو يجي markaas ayada ragii la ii waday oo u socday dabcan xog ahaan way iga hayaan markaas Saakow guri marka xal idin jicila marka maqaad macanta ka soconahay inkastoo meesha wax yar aan joogay muddo 4 maalin 5 wax aan joogay meel marada aan ka soconahay waan soo laabanahay marka xitaa magaalada aan dhaxmaray xilliyada qaar xogaa cimamad baan xir yaan saarna wajiga أنا دي مركز إذا أمسن إن ستوص اللي مشغولين أو شاب عم حسب ذا إيه سام كاسات يقوم مشغولين وهذا يحتاج لقطة واللي يسيدين دون كدب جارس سكسيد
oo pencil ah iyo saako ugu imaado waliba guriga hortiisa u magaaraysa gaarigan fuul baa yiri ninkii darawalka ah wuxuu yiri gaarigan soo fuul dabcan guriga dii location aan kulligu ogaa gaariga waan fuulay gaariga markii aniga bis asaan axad kale inuu saaran qayb dhammaan galay oo shirkad usoo galay gaariga isaga ahaa amin habeen 4 saac meelahaas tahay 3 saac iyo bil yaan galnay gaarigii meel markaas waxaa soo wacay lambarkii markaas aan watay oo samteelka ah lambar baa soo wacay wuxuu yiri gaariga meeshaas kale kaga dhig halkii waa meesha la istaajiyay meesha yani korontada warshada korontada shirkadda korontada agteeda meel aan kala istaajiyay jilib meesha waxaan taagnaa adii muddo 5 daqiiqo oo kala ah waxa ay misadam ninkaas baran doono hadda waa shaqad naga dhexeysa xilli sadam marka sadam kulli waa sargaal al-shabaab sidaan aan u fahmay طبعا ما ورثنين واساس maxaa tahay xil haysa waxaas ma dhihin laakiin markaan arkay in wuxuu ahaa ka tirsan dadka levelada dhexe oo warshaad guriga u geeyay marka guriga waan adiyaan tagay guri keligii oo aan mis markaas aan joogay cida guriga uu tusay qaabkan oo isticmaal u joogay marka waxaan lagu yahay soo bixin magaaladan basaasiin baa joogta saddex dhinac isugu jirta joogtaa maxay ku kala sharaxay marka basaasiinta magaalada joogta aniga laftirkii markaas waan fahmi karay basaasiinta meesha joogta laahu i sharxaa yaa kamid ah Jubbaland ma kamid ah basaasiinteeda sirdoon Jubbaland ay leedahay joog ku jira yaa jooga ha nisa kamid ah waxa kamid ah CIA qolyaan galada cadaanka dad ay kulli markaas khaas ay kulli marka Soomaaliya ayaan siraasin iska shacab hoose laakiin rag مشاعر عجوة ما راح يجوا مركا صوب الحين بيقولي أنا لا تركي مركز أنا صوب حد يخطر بقى مركز ما مش أسكول لنا حتى إن اللي جاي يقولي قف وجوه كلا خطر بقى مركز سلام كان هبين كي وعن كلاه الله مركا وحلو يجري عنو عن تكو كنا بيسجل عنو قاسنا وعنو سكفي عنو وقفنا يعني مسنا هيوي وقف موبايل حتى أنا سن سكم مسكين يجري لكن ما أمن وجهك حرنا كسوق لاي عندك حرنا sababta inda xirnayso isku qarnayso maxay inuu sanani canugaas xitaa uu san xog ihin cuntada keenay laga yaabo inuu shaqo Jubbaland marka canugaas soo galayo leeyahay waa maskiin oo ma garanaysa cunta ku keenaya oo waa humna leeyahay aan ma aaminin markuu albaabka aan ka furahayo taamadan uji ku xirnay cuntada keenay salaam alaykum وبحي marka ظهركii markii la joogo 6 saac malahaas 7 saac markii la joogo waxa ay imaaday mucaad iyo sadam wixii xal aan saarnay sadam buu ahaa way soo dhaweeyay mucaad laakiin waa ninkaas ka sareysay ana u fahmay waa wuxuu watay in ka badan 5 mobile ayaa 6 mobile malahaas watay xitaa qof markaas wuxuu ahaa xitaa codkeeda beddelinayo oo qaranayo ahaa laakiin wajahansa aan iska muusin ka qarin mucaadka hada warka عادي واركها marka waan sheekaysanay waan isbarnay su'aal badan ay weydiiyeen xitaa way weydiiyeen waxa inaan hadda al-shabaab ku soo biiro iyo kalifay waxay weydiiyeen bulshada wacyiga sida uu yahay al-shabaab ay ka aaminsan yihiin oo kale had level ahaan xilligan al-shabaab meelaha qaar saameynta bulshada ku dhex leeyihiin saameynta dawladda su'aal badan kulliyan ugu jawaabay waan markaas fikir ahaantayda yani waxaan ka aaminsanaa marka wixii ka dambeeyay isbarasho waxa la keenay macallin macalinkaas wuxuu ibarahayay horta marka hore qorshaha wuxuu ahaanay xitaa in la ibaro tanfiid difaac nafsi waxa ay kulli u yaqaanaan oo xitaa hadii qofku uu diido inuu barto leeyahay hadhow isku difaac laga yaabo qof mooriyaan inuu kula muusub laga yaabo qori ka qaadil laga yaabo baxsanaysid oo hubna haysta ama hub heli kara oo laakiin baxsad ah hadii hubka garin maxay isticmaalay marka waxna aan asaga isticmaalaan qof istifaaraadkan di waa basic wala rabaa aan laakiin qorshaan wad marka qorshay wuxuu ahaa horta waxa u badan lagu fashilmo inuu yiraahdo qof soo dilo amba tuuro waa
al-shabaab dee bamtuur in had ku dhahaya wax la isweydiinaya maaha ama qof dil waa wax iska dee shaqadii baa kamid mugta haddii laakiin aad tiraahdo ma awoodo oo kale ama ma garanayo haddaad tiraahdo oo kale markaas dee qofkaas dil ama waan ku dil wax leema jirto ani marka waxaan ka gaabsaday oo qorshihii aan wuxuu ahaa waxaan ka gaabsaday oon diidanaa in la ibaro ma garanaysaa bistool si loo rido ama markaas babka si loo furo loo turo la ibaro waxyaabo noocaas in la baro yaan markii aan diidanaa marka laakiin waxaan ku qanacsanaa keliya in si toosa la ibaro waxyaabaha istikhbaariga ama macluumada taasna waa la baray adi marka dambe ninkan odayga ani kulli hadda bistoolad si loo isticmaalo waan qanaa hadda kuma dhahayo bistoolad ma isticmaali karo kuma dhahayo oo waa kaaga sheekeyn doonaa oo qorshooyin kale u diyaarsan kismaa dhexdeeda oo aan la qaban karin hub la-aan marka muhiim ah inaad hadda ii aragtid qof hub aan isticmaali karin marka laakiin ayagaasana waxaan diidanaa maadaama raggii hore oo macaahid markaan soo maraayay raggi ayagii wax isoo baray oo dee isoo tababaray aysan ahayn waxaan diidnay in hadhow yidhahdaan hubkaan ku barnay oo jil baan kugu barnay sidii wax loo dilo ee qofkaas dil noocaas ama bamkii baan kugu barnay jiliba tuur taas markaan ka argay wayn ii suurta gashayba xitaa qof waxaa isaga dhigay fulay oo ma garanaysaa bamka hadduu tuuro ciidanka dhex ordahay la qaban karo si fudud buu qoon kara xitaa isaga dhigay ama hadduu qof dilo intii jihaad ka dhunto aan carari karin saas yani aan soo gagaabsaday marka ayaga waxay dhaheen diyaar waay dhaheen macluumadaha iska taasna ku fiicantay u dhaheen ayaga maalinka u horeysayba magacafan maalinka u horeysay maalinka ku xigtay wuxuu soo gala soo bistoolad wato laakiin maalinka u horeysay waa isbaranay waan sheekaysanay jihaadkii waxaas iga sheekeeyey inuu jihaadku waajib yahay aniga waa ogaan karo jihaadka waajib maxay keen adil way sii fahnay maalinkaas marka isbarashay laakiin maalinta ku xigtay weliba gelinka ku xigay oo galabti yani wuxuu imaa asagoo hubeysan oo bistoolad wato marka bahashaan sana la dhahaa waa bistoolad CF ma u sheegay magacaas way jirtaa soo yuu sheegay la yiraahdaa waa bistoolad noocan ah marka wax noocaas u sheegay marka anigu waan gaabsaday marka oo qof waxaan iska soo qaaday aan hub wax ku dili karin xaaladdaas lagu jiri waayaa si hadhow aan shaqo tanfiid aan lagu dirin marka aday ninkii wixii inaysan igu socon buu arkay xog marka wuxuu gudbiyey ah wax ani aan rabo ninka inuusan fahansanin marka mucaadkii ragga imaadeen waxay dhaheen hubka hadda lagu barahayo dee ragga intelligence baa shaaf rag waaweyn waay oo fahmi kara way arkay inaysan ugu soconin in hub la ibaro marka waxay dhaheen difaacu nafsi weeye inaa hub baratid cabdullaahi ana magacaas afgarashada la yaqaan cabdullaahi waa dabcan ayagay ku yaqaanaan haa marka hore waxaa la dabcan la bixiyay magaca yar kamaal wax noocaas carab anaa laakiin waxaan ku iri magaca ugu badan Soomaaliya isticmaasha cabdullaahi waa cabdullaahi la bixiyay magacaas la baxay sababta ma doonin magaca xasaan iyo taabid hebel wax bash fashil waa okay marka ninka marka wuxuu igu soo koobay kaliya inuu ibaro waxyaabaha mukhaabaraadka ah kaliya isaga markuu ii fahmay kulli guriga hub waa yeelay kulli guriga hub waa yeelay laakiin ayaga ragga meesha u gaabsay marka kaliya macluumaad la ibaray habka xogta loo raadiyo meelaha laga raadin karo iyo waqtiga la raadin karo qaabka la isku qarin karo iyo waxyaabada dheeriisa kala mukhaabaraad waxa laga yaabaa dadka Soomaalida inaysan sharaxaad ahaan aysan fahmi karin macnaheedu maxay sirdoon xog raadiye basaas qof yani adi xog kaa gudbinaya marka waxaa ku qanacday inaad barato qaabka wax loo basaaso ama qaabka wax loo sirdoono oo keliya dee aniga shabaab ka hor dee 500 iyo mazaada oo waxaan daawaday muuqaalo oo dee kuwaan aan ahayn u taqaanaan Turkida oo sabaxaas aan ahayn sirdoon fashilmay Israel Mossad iyo Palestine waxaas aad u daawan jiray yani mukhaabaraadka qolyahan Ruushka marka saasa marka yani macluumaad fiican ma haystay oo inaan markaas shaqo qaban kara adi markaan muddo cabaar aan sheekaysanay oo aad aan isku fahnay mucaadka wuxuu go'aansaday in aniga aan ka shaqeeyo dilib dhaxay meelaas
يعني فكرة نوع عصو معاد يوتي يحتوي قرط شتى ودي قاب كأه إن عندهم سين كتر ودم برس قدم برا نقول تاس في عنت ما يكون عنتاس وادي دين لا تركه أو مجعلان إن دم بار اللي قالوا سدام كسيلة كي وحوه تي إكس مايل إسونتر أو ماشي يسوعي أنا كنت أسوي الربيع وجي جامعة إني أنا أبدا جامعة معه ما كان جامعة لما يكذب قرشها ويوجد لنا دور القلب برد ها هذه جامعة إذا ما توقعت وحي الشهادين اسكت دودو أنا ما أعرفه أنا إنا توس أرقص إبران وهذه يعني جرب يساكو كجب هذا ها أفرق هذه الشغلين وإحنا قال في الشغل ماشي هذا اسمه كنت موقت شغال ترى ما يقول لكن إحنا الشغل اللي يدرو عن قطار هذا نقف كسمة كوسي نجانا ما هن وحقيقة لما هذا توبرك إنتليجنسي وحمرك اللي يسوى بندقية سادام مرة حوجا إنه حقوقك أنا جرفت فوضى ويرك حوجا ضفك وحواي وح سهلة دوا عياد الوسط قبل كم سهل وح سهلة مركب وحولي إنه أنت عقب حصان هتيجي تسوي لي أنت قارك راعي صح وبيك بيجوزه برع ما هي هذا قام أنت هذا كسر بحين جرب مقالة لحظة يعني ما لحظتين نصف ساعتين ها سده حبيبي waxaan ku uriyay buug oo baahan ku uriyay ana inta badan buugta aan akhriyo waa sirdoon buug jacayl sheek hebel qasiir waxaan inta bay ugu socdaan waxa inta badan akhristo buug sirdoon waa xitaa waxaan akhristaa buugta assassination waxa dhacay oo kale waxaan rabaa horta inaan ku weydiiyo kismaayo soo galitaankeeda oo ku soo laaban doonaa jirib markii ay joogtay waxaa jiray in magaalada dhex martay magaalada dhex socotay sheegtay dabcan aad buugaag u baahatay ninka buugaagta ka gadatay maktabadda qof istaqaaneed muu ahaa mise horta waa saxta waa ka yarayloway marka aniga aan soo baxay ka hor intaan soo bixi ka hor waxaan u baahnaa inaan buugaag akhris ah waa noocyada dheheen buugaagtan sirdoonka ku ori marka wuxuu yiri maktabadaha dib iska badan yihiin oo kulli buugaag waa yeelaan albaabka soo istaagay عمدان سوق هذا يعني عمدان وجهي كسو حرتي اسمك ايدا سادام حتى وحور العمد ده اسكو مسير العمد دبا اسكو سيس وصان xogaa soo markaas wuxuu cid ku fiirinaysa ma jirto taas oo qiimeeyay adoo muxaadara buu yiri cumad aan oo madax ka qaaday aniga marka wajiga xirtay oo caadi ma dicamadi waji u xirtay markaan ka soo baxay albaabka waa leer mid arada telefoon kooda markaan telefoonka salaam u soo wacay waan ka qabtay marka wuxuu yiri aragtahay ani soo raac ani salaam waxa isku jirnaa meeshaan iyo adii ilaa dhowr iyo 20 tilaabo ilaa 40 tilaabo kala isku jirnaa way daba soconaysa marka wuxuu yiri ani soo daba soco saas ku daba soconay shirkadda weyn hormuud oo ku taray jilib markaan saan u dhaafnay asal marka laabku galay marka wuxuu yiri maktabadda ma arkaysa magaca ku qoran magaca ma xasuusto marka wuxuu taas gal ani salaam waa isla hadeen is daba soconay لكن دي دس اسمه كان يقنع سوا هذه لك اسرعنا دي انا وافشل الموت يعني كان لوجي انه يسجل امنيات مقالنا سلام لكن انا وحي موقت دو دبا قفل انو نسا مكتبدي بان غلاي بوغ انا marka aan rawo ka waay markaan xaafadda ku soo laabtay shaatigi aan watay waan turgimiisa ciidamada magaalada kuma soo galin shaatiga aad qabtay shaati aan dhex maray magaalada jilib waxaa keenay marka in shaatii aad qabtay dharkaa ka mid ahaa iyo culamadaadii labiskaaga qayb ka ahayd jilib aad ku joogtay aad turto maxaa kugu qalafay shaati isaga hadhow kismaayo ma ku dhex wadan karaa haa dabcan anaa kuu sheega ku dhex wadan karaa laakiin wax unba inaan iman karo dadka meeshan joogo oo mukhaabaraadka oo ama sirdoonka u shaqeeyo maamulka jubbaland dadka iga dhigool ma iskama socdaan moogta xitaa dharkaaga la fiirin karaa wax yar oo adil lagu aqoonsan karo xitaa la siirayaa marka sidaa ku turto waan toortaatay waxaan u soo dhaxtay guriga aan degnaa intaa kadib wixii markay ii soo dhamaadeen saadaam wuxuu soo bandhigay inaan ka baxa jilib oo kismaayo aan ka soo galay dhinaca webiga laakiin aan qorshay wuxuu ahaa jidka aan ku baxay aan ku galo jidka ku baxdeen muxuu ahaa
baar caleen waan soo laabtay marka waxay ugu dhaheen qaabkeed ku bixi karta adiga bal talakeen waxaan ku idhi halkaan mooto ka raacayaan ku qofkaas mootada aan raacayo qofku wado waxaan ku igu hubiya ama haddii idin igu hubin karin oo uu yahay qof Soomaalida wax iska dhib badan moogta وجهك حرناك رقبة ساعة ما نبغى هالدين لكن هدي ويا قف أطفال وأدينك أسوء أمتين أنا أدينك هو سياسة وعادي أقول وعقد سوى عادي وراعي لكن قف كأد موتيس صار سان هنقول قف دي الله هو رحمه عنو سكول ده يوديك را نبغى ولا تسمع صار أنا عصر صار إنك استوى عنو مركز مع خالد دونا ودي قاف أصعد واحد أصعد لما عن دبجدين دونا صاروا marka waxa la yiri bariis diis cabayda doosa malas duhur markaan tukadaan noota isu istaagay dadka waan soo baxay marka boorsadaan soo qaatay qarab soo gashtaan soo baxay mootaas marka waa inay igeysaa si aan isku ogeyn beerixan markaan ka sii raacaa gaari saas ah u galaan magaalada Kismaayo xitaa hadii la weydiiyo beerixan ka imaaday qorshe ay diyaarsanay qorshe ku diyaarsan qorshe diyaarsan wuxuu yahay maadaama ka tan iskuul ii furay oo iskuulkii ii furmay oo magaranaysa 10 wixii bilowdeen inaan sugu waayay gaari xilligan ka soo baxay baar dheere oo baar dheere kaga soo baxay gaari u soo socday saako oo adina saako aan ka soo raacay gaari kale oo ay si yaani qaab degdeg ka soo baxay oo daman gaari imaan hayo kale meesha la yiraahdo Beerixani inaan ku imaaday oo gaariga caasi oo ka shaqeey baar aan sugu waayay oo kale qorshe noocaasna wuu inaan kala dhacay marka anugan uu soo qaaday marka waxay soo qaaday inta si soconayo kale su'aal bi wadiyo xagga socota ah meelaha aan socdaa ku dhigay waxaan ku ekaan ku meesha liga Beerixana ku ekaayo suuqaasi waxaasan xoolay yani iibsada Kismaayo waliga ma marna ta walaga caafimaad oo laakiin Kismaayo ma ku aan wasi aan halkaas aan sii diiday su'aal bi wadiyo ma ka shakiyo marka anagoo soo gaarin Beerixana intaan iman ka hor markaan ka soo baxeen meesha liyaad markaan soo mareeno weel mar markaan soo dhaafanay makhrin ay tahay yani kan wuxuu u leeyahay caaw xasaxana meelahan weel mido waxa lagu cad mido meelahan saxana caaw sababtoo ah habeenkii waxa wareegtay baan garaafta ama qolyahan loo yaqaan danab hadayna qabtaan wixii la gelaya oo qof habeenimo mooto ku socdo oo shaab dhimalahan waxa ku yiri anaga hubma wadana oo marka aday iska kaan wad baa ninka aday xogaa uu dhibsay laakiin waan soo baxnay intaan soo gaar markaan soo dhaafno midow yaa wax ka doonana gaari kuwan oo raashinka geegeeya ah meesha la yiraahdo sargle oo ka soo baxay sargle oo laakiin faro wax soo socdo yaa ka doonana gaariga waxaan ku go'ay mooto aan tagay daqada ka hadlay waxaan ku yiri xagga soo Kismaayo ku raacayaan ku lacag waxa ka manashin boodi lacag waa iska bixin karo nishaab shaqayaan marka waan heshiin lacag tan dooro ku heshiinay mootada iska noqon karo laakiin markii ninkan aan heshiinay oo ku Kismaayo rabaa asay aniga mootada ogeyn oo halkaan waxaan ku gaari mootada ku urgo halka ay taagno ninkan la hadlay meesha socdo hadduu Beerixan u socdo waxaan ku yiri intaan waa laabanaysa ay dhimal lacagtan la shaqo qaado gaariga waan fuul ninka uu kala wareegay ninka odayga saadaan baan wacay waxaan ku yiri gaariga saaran $10 waayo soo dir way soo dir gaariga markaan sii soconay waxaan ku yiri adii xageetii ma salga soo aha ninka salga ka soo qaadaysan furan hadii Kismaayo salga markaa Kismaayo salga gelino ninkan waxaan ka soo qaadaysaa salga lacagtaas soo qaado maxaa dhacay weli waxaan ku yiri baar rakiib koorsooyin baan soo maran ku yiri yani iskuul baa la furay oo 10 aan bixinay macnaanka marka mas'uul kaliya ku gaari ka soo baxay baar xilliga saasana ay ayay u yiri waashin aan ma khasbin oo qofkaas qof u hanjaba karmaa laakiin si caadi waxay uga dhacay markaan imaanay Beerixani yaa waxaan u dahay kuwa al-shabaab ah ee fasaxay gawaarid aad u dahay sabab ma cabsida ka jirto qolyahan dana iska daadana ma sheegay marka waa in lagu hubiyo 5 saac la gaariyo meesha waa si muhiim ma meesha shaqo meesha waxa ku gaaran 5 saac oo maalmaha kadib qoliya al-shabaab imaaday oo gawaarid saxay
أنا مركز جاري سكسيد ومركز دوبلي كي معضل ودوبلي مع عشان كشغيس يليه شيء مركز gaarigan weyn ka digtaarta hadana جاري ما كده ها صوبته جاري وين مص سعود كيس أسكير عارة إن كان كوجل جاري هو خطر لك إيمان كرت دوبلي إن ده جاري دوبلي كمان كحوك إيمان كره واحد عسين ندي خطر نعس وليشت حلقة النجوجيس مركز أو قلبي هن أصلا مركز أيضا اسمه مركز أيضا سدام وما هنك أصل الشقية أنا وأوجي هاي أنا جاري صارن ونفهم كراحلي جاري وقال جاي اسمع يقول هاي نينكي موتد هو دي السلام يحو يصير موت وأصحابه جاري وإصاري ترجع وفهم كرو وشيء كرا إن ما كان اسمع يقول هاي أو كلا حتى ضل إسكان برتان أنا أما حلي أن اسمع يقول هاي إنه سدام وأنا مرهب صوت أنا إن ما أمنه قف بين أنا ما أمن بقولك بقول هذا كذا تشغلين على شافعة بقولك صدق مرة من أمن سنة تمام دي حتى سبعة يريح جدول أنا مش جبت أنا أوشي مرة كقاري مركا على العموم جاري وانصرع ولي شيء وانصرع gaariga dhoble ka yimid جاري دولي كإماضي ومركز بريحان جوا صراحة العين كل شيء عشان ضرر تفضل من هذا اسمعي سيدك سكر muddo kadib waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo isagoo si aad ah isaga ilaalinaya hay'adaha ammaanka ee Jubbaland in ay fahmaan dhagarta uu ilaa Jubbada Dhexe ka soo maleegay waxa uuna u diyaarsan yahay fulinta ballamihii ay argagixisada ku soo ballameen oo ahaa in magaalada Kismaayo laga fuliyo weerar qorshaysan dilal iyo afduub Cabdirisaaq oo xambaarsan dhagartii argagixisada ayaa magaalada Kismaayo si wacan uga bilaabay shaqadiisii ahayd dhagridda bulshada Soomaaliyeed ee nabadda ku naaloonaya waxayna mar walba wada xiriirayeen xubno ka mid ah argagixisada kuwaas oo ku qalqaaliyay in uu qaato taleefankii looga wada hadli lahaa arrimaha ku saabsan fulinta howlgalla argagixiso kaasoo markii dambe xubno uusan xogtooda hayn balse ka mid ah argagixisada ay goob magaalada ka mid ah u dhigeen taleefan iyo simikaar diyaarsan horta aniga Kismaayo markaan imaaday afar maalin oo kale isla maanan hadlin ninka la yiraahdo Saddam aniga horta cidaan waa shaqaynay Saddam هذا لو ما ممكن جوكس ماي وسوعي وهواي الشك سنة كاسن دي لمر كشعب كان سرادة أنا أسمع أصلاً كلام شعب لأن لمر شعب أنا أسرها هذا والشك سنة لكن كشغم بلا أنا مركز حارنا قيمنا مركز هرتا بحتان كي إن لقيش كي إنكره يعني قيمنا يا ومركز خوف دق قبا وصوت الشقب لو واحد مجنون واحد يقول نص حالة قيمة عادية مرودو صعبة shan maalin iyo afar maalin kadib ninkii odayga ahaa Saddam ahaa horta markii hore inaan furtaan rabay laakiin systemka umar lahaa ay u adkaa raad inaan ka tagaan miyaan ka baqay number hormuud inaa qaadataan maya samtel al-shabaab hormuud kuma hadlaan marka Saddam rag marka wuxuu dhahay mobile inaan ku siinano iyo ma garanaysaa simkaarkiisa iyo wax xirna suuq haye Saddam يسوعي وقت يسوعي ويقول لي ماشي اللي يراهدو مدرسة الخيرات تجيسها xagee ku taalo waxay ku taalaa ahaanta biyaha marka xag loo dhaw caafimaadka wuxuu meesha ila tag dhagax noocaas waxa kala soo baxaysaa alaabta ku jirta alaab maxay baa hor hadda shaab di alaab sheegan di waa qarxa sidii mugta iyo wax kale marka wuxuu u yiri alaabta ila waa mobile marka waxaan ku yiri waxaas mobile ima amin noqon waayeen maama mobile waa Cabdullaahi eesh wax meesha ku yaal mobile kaaga way wax kale ma hadii wax kale noqdaan ka soo tagmid wax kale noqdaan hadii wax kale noqdaan ka soo qaadan ka soo isla markaas Saddam laftirkiisa xoogaa taag u dareemay ninkan soo noqday maxaa kugu amar noqday asal ninkaas asay wax saas way gareen ماشي وان تغي marka hore waan yar maray waan ka soo laabtay xilli isaga marka tag u yiri oo meeshaas soo fiiro alta soo qaado u yiri xilli anay meeshan tagay waxaan ka soo qaatay mobilkay marka meeshu meel see u eegay marka ma guriba mise yani meel iska banaan oo cidla waa geed buuca
hoostiis dhagax yaalay iyo ku hoos jiray mobile oo wadda ah yaa wada qarkeeda ahaa laakiin markaas yaa maro haddii 4 saac la gaaro meesha waa wax joogo marmar waxaa maro waxaan iska hor imaanay markaan mobilka soo fiiriyey waxaan iska hor imaanay oo soo qaatay ciidan u socday xarada ku taalo nin Kismaayo isdhex maran oo lugeynaya boolis baahan dad iska sheekaysanaya waxay ahayd markaas howlgal kumaysan jirin dabcan marka aan soo socdo marka soo qaatay marka ciidan igu soo socdaan marka waxaan isla ciidankan yaa balmiyay haddii ciidankan qaab ahaantooda iyo uma bagna tuura markaan rabay sababtoo ciidankan maxaa meesha xilligan 4 saacadoodnimo ciidanka masalan waa wada meesha isma aaminay ciidanka marka dad sigaar iska cabay waxaan iska qaylahay oo ka sheeganay marka aan inay suuqgal ku jirin aan dhaxmar anoo mobilka shaqada wato wata cabdishaaq waxaa jiray bambooyin magaalada la soo geliyey oo dabcan la rabay in lagu dhibaatay dadka shacabka Soomaaliyeed bambooyinkaas ka waran isay ku soo gaareen horta bambooyinka aniga bambooyin aan magaalada soo geliyay ma ahayn waxaan ila socday ma ahayn xogta bambooyinkan aniga waan hayay oo magaranaysaa sargaalka ay soo wacay wuxuu u yiri meeshaas madrasad al-khayraat kasoo horjeedkeeda waxaa noo yaalo alaab baa noo taalo alaabta iyada ah waxaan kaa rabaa canuga dhigay meesha geeyey waan ku kalsoonaan la'a ma garanaysaa ii soo fiiri cabsi kaloo waxaan qabaa buu yidhi boosoo kale in la yar dhisayo wax noocaasa oo shaqo laga hayo marka ii soo fiiri ina taalayn karo marka meesha adii waan tegay waan soo fiiriyey marka way taalaa baan idhi inkastoo marka hore aan isku yar dhacno waxoogaa inuu tuur dhahay baash inta qaad tuur waxaan macsa ka baqayay iisoo fiiri bis yiraahday wuxuu yiri ana Bombay ima fiiriso qofin ima dilis ay shaqooyinka kala wado tan kala ka harayna iisoo fiiri bis marka waa soo eegtay meesha ku jiraan waan soo arkay waan ka soo laabtay markaasna deeqaad oo tuur waxa imuusan dhiasay xaas imuusan halkan meesha waxaan kala baxay bacmadooy mobile halkan maxay ku ahaan jirtay marka hore meeshaan waxaan kala baxay mobilkii aan ku shaqeynay mobilkii marka adiga nimanka odayaasha xiriirka ku leedahay yaa inta kala baxay isaga ism kaarkii ka sheegtay kadib maxaa halkan la keenay oo mobilka ka dambeeyay kadib meeshaas baa waxaa la keenay laba alaab ku jirtay oo dhinaca kale darbi hadda aan tegi karno bambooyinkii iyo hore kale laba bamba warqadii macluumaadka ku qornaa warqadii ayada waa laabkan mandaqadan waxay ku ahayd mandaqad ka hesha macluumaadka howlaha ku fulinaysa waa tahay daawadayaal dabcan sa aragtaan ba halkan iga dambayso waxay ahayd goob si gaar ah ninkan iyo tiimka ku xiran ay u keenaan taleefon markaasi uu xiriir kula sameeyay nimanka ka sareeyay ee markaas ku sugan qaybo kamid ah gobolka Jubbada Dhexe oo argagixisada waaweyn ah sidoo kale halkan waxay keeneen dhowr bambo oo loogu talagalay in lagu dhibaateeyo dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo waxaa kaloo halkan la keenay warqad ay ku qoran tahay macluumaad ku saabsan fulinta howlgal qorsheysnaa laakiin hay'adaha amniga ay markaasi fasaliyeen oo ku saabsanaa jaamacad kamid ah jaamacadaha magaalada Kismaayo xaflad ay magaalada ku qabanaysay in arday qalin jebinaysa halkan lagu dhibaateeyo laakiin waxaasoo dhan waxaa been ka dhigay markaasi fasaliyey ciidamada kala duwan gaar ahaan hay'adda nabad sugidda oo la socotay dhagarta argagixisada isla markaana ka hortagtay howlgalladaasi qorsheysnaa tani waa tilmaanta ugu weyn mandaqadan ama eriyadan oo ahayd halkii lagu kala qaadanaya awaamirta gaar ahaanna walxaha qarxa macluumaadka kale ee Cabdirasaaq loo baahan yahay in marka uu helo madrasadan oo ah goob arday Soomaaliyeed wax lagu barayo wuxuu noqotay bartilmaameed ka soo horjeedkeeda iyo mandaqada ama meesha ku dhow oo ah dhul markaasi xogaa yar cidla ah mugdi ah leerkan uu ku yiri marka waxay noqotay bartilmaameed Cabdirasaaq in lagu wargeliyo in halkaas meelaha u dhow uu ka helo xogaha ugu muhiimsan sida warqad wax ku qoran yihiin bambooyin telefoon uu markaas shaqada ku qaban lahaa iyo waxyaabo kale oo markaasi qaarkood dabcan xasaasi ah oo muhiim ah marka wax ku tusaysaa tabarta iyo heerka argagixisada hadda ay marayso Cabdirasaaq oo kaashanaya argagixisada ku sugan Jilib iyo Saakow ayaa markan qorsheeya in weerar bahalnimo ay ku qaadaan hoolka daawada ee magaalada Kismaayo oo ay ka qabsoomi rabtay munaasabadda qalin jebinta ardayda jaamacadda Balaasma faraceeda magaalada Kismaayo
sidoo kale waxa uu sahmiyey goobo kale oo ay damacsanaayeen in la weeraro oo ay ka mid tahay halka loo yaqaano indhabararka ama kaantaroolka laga gala takada weyn ee magaalada Kismaayo goobo kale oo muhiim ah. habeenka subaxeed waxaan noo bilowday lambarkan shitay ani isaadaan waxaan noo bilowday shaqadii rasmiga ah howlgalkii rasmiga ah bilaabanaya Kismaayo ka dhexda marka tijaabada markaan sameeyay intaan ka hor aan ka asar shaqeyn hadda adeegta hadhow la qabto oo aan la qabto saadam qaab u dhaqmi lahaa يعني واحد qiimaha ku sameeyay yani adiga waxa radar yar ku tuuray isoo wacay Abdullahi oo taqana Abdullahi mtimiya Abdullahi aw taaf u jaran kadam marka xoogaa ninka xoogaa hadal waxa ka yar marka qaar hadalo laakiin sida kale iska muhim inta kadib marka waxaan sameeyay mobilkii aan iska helin waa kii shaqada moogta lambarkan waxaan meel ku qortay maalinta aan soo qaatay baan qortay bil kadib markaan aan turan rabay al-shabaab waxay sameeyeen lambarka markuu fashin kadib baa la tuuraa aan laakiin waxaan rabay isagoo haafa inaan tuuro isagoo weli xitaa lambarka aan fashilmin oo lagu shaqayn karo inaan tuuran rabay mid cusub aan dalbado aan qaato lambarka iyo mobilka isla tuuran rabay labadaba waa isla tuuro signalka marka saadam wuxuu ugu yiri waan sheekaysanay wuxuu ugu leeyahay xaalku waa sidee Kismaayo qiimee hoteelada raggan madaxweynta oo jooga meesha dharcada dad iskari hadda si caadi ah u baahan og in shaab hawlgal ku jiro hadii habeen isir kor maado wisdom mar isiri caadi tuutaw muhiim ma aha laakiin raggan dharcad kama oo kale sirdoonka ma nimankaas shaab way dilaan madayan marka wuxuu yiri raggaas wali rag yar sarsare oo kale xagee laga heli karaa meelaha laga heli karaa soo fiirin ani marka programka hore oo al-shabaab aan kula tagay wuxuu ahaa programka soo al-shabaab oo la tagay iyo kan iska hormaana marka keeda baan ku sheegay aan kulahaa qorshe u socday iyo kan xogaa aragaas marka balanta waxay ahayd in ciidamada shisheeye oo ku hadal keenayo oo la soo wado laba tashata la ansixiyay ku hadal kadib joogay waxa noo caanay ku elmarku joogay iyo cadaankii waxaan in la halaago yaani qorshaha ay isla soo garanay ay waxay dhahay wad fiican hadii xog kuwaas ka keeni kartid ana qof Soomaali kuma dirino kana kugu maalgelinaa wada hadan ninka maahan Kismaayo imaaday Saadam xirni ragaas xagee laga heli karaa madaxweynta oo dharcad ah oo sirdoonka نودي أردت حوالي بصدي مركب حكوري كل ليل كلام كل لما واي كل واجد جوان مركب يقولي ميل إدقيه بجرته متقنع بروتر كل جهة أجن واقعنا أجن تج ممكن يقولني وصاين إنده الرجل أول مش يجوا كل المجال جوا تاجرنا ساعة مركب هوتيل كسوق قيمة ها مركب هرب حكوش بني آدم كأن عندنا مأمن waxaan aaday asasi mantay agan bal idri asasi mantay asasi sababta oo waxay ahayd in hotel baan tagay aan ka soo dhigo oo hotel aan tagay aan halkaas dhigo aan ka sheego kan marka waxaan uga carrahay in rag sirdoon oo al-shabaab oo muqaabarat al-shabaab ka tirsan in meesha isku kaan baro leeyahay noocaas imaaday hotelku jooga oo saadaamkii ragaas dhahan ninka noocaas isbarta حسب أنا كعرف أساسي مكان ما لها قارن ويقدر وانتقل لها لكن ما كاس إذا مدام شغال في أسبوعي وقال فشل عندي هذه أساسي وانكسر شهية ودي أنا ماشي حلوانك ماشي فرق حلوانك أنا شايف حلوانك مدينة جان حلوانك قاعد سرتين لا شك يستل شهس حلوانك وان سلامي ولو شقي يقوم قناع حلوانك وان شك سني kuwa kale oo siyaasiyiin oo dhowr meesha oo horay u jihana oo aqal meesha ku ararkay waxa ma kasii ahmid ma siin waan iska soo tagay odayga xilwaanka waxa soo sheekaysanay oo hadii al-shabaab ma xilwaanka inuu soo laabtay karkaal meeyaan sheekh ka cab isku jiyo waxbar laakiin ayaga ragaas al-shabaabka
qof una soo gudbisay waalidii qof adiga abnaadka gudbisid waa la xaqiijin kadib waalidii leeyahay dii markaas laf dhumushay intaas kadib markaa waxaa dhacday saadaam soo wacay wuxuu yiraniyow waxaa jirto arrin yar kismaa laga qabanaa jirto oo madaxweynaha Jubbaland xaggiisa markaan howlgal weyn oo dabcan aad u diyaarsanaan ugu qorsheynay de howlgal ay qorsheenaha ma suurtageli doona kaas dhawaan arki doona laakiin markaan diyaadi marka amniyaadka al-shabaab muqaabarat waa tahay ay wax kasta ka baahin mugti warqadii uu soo qoray al-khayraat meel darbiga xaggu markuu dhigay yaal dhigay meesha taleefka lagu warqada si saadaam soo qoray kulli warqad kismaa laga qoray meesha balgi meesha taleefka lagu dhigay meesha taleefka laga dhigay isla meesha ma haya meel yar dhinaca laakiin eeriyada mandaqad eeriyada warqadii xilliga asaga uu yiri soo qaado ma ahan xilli kale oo galab ah subax baan tagay waan soo qiimeeyay meeshii ay ku jirtay waan dareemay in ka soo laabtay galabtii markaan ka baxay iskuulka yaan waxaan qaatay buug xisaab sideed oo aan dhigahay iyo buug kale oo carabi iyo tarbiya rabaa yaan qaatay waxaan dhex gashay markii ilaa dhowr warqado imtixaanka ardada ah waxaan dhex gashay markii waa maxay warqadahan kulli arrin baa u qaadanaya iskama qaadanaya markaa socota marka waxaa tahay macalinkii iskoolka aqoon bilo dhigayay laakiin haddana sargaal amniyaad argagixisada ka tirsan sargaal amniyaad ha kulli argagixisada in baa u yaqaanaan argagixisada ma aqaanin marka meeshii baan tagay warqadii caraan qiimeeyay xoogaa yaa joogo iska fiiriyey magaxaan saar warqadana soo baxay waan yara qiimeeyey weliba xitaa marka kuu kala ku daadiyey dhowr warqado kala dhulka isaga daadiyey warqadii isku duuday yaa dhihi kara meeshaan warqada lagala baxay maxay tahay haddana faa'iido warqad ilaad yaa dadkii aan shacab xitaa xitaa qof ciidan meesha marahay meeshaan qof warqad kala baxay maxay hadda warqadeedaan soo qaatay xaafadda intaan xaafadda aan imaan ka hor yarkii ila degan ayaan wacay waxaan rabaa warqaddaas markaan akrinahaya ninkan inuusan imaan baan rabaa guriga aan soo degan waan wacay xagga joogtaa meeshii nihow yaan ka baxay hadda iskuulka aan dhigayay oo dalacada u socdaa buu yani cashira asaga uu bixiyo untii hay xaafadda baan tagay qolkaan iska soo xirtay warqaddii laba jeer ka akhriyay waan jeexjeexay isqushan ku dhigay suuliga ku dhigay warqadda baa Soomaali ku qorto هذه ورقة في الصومال كقرنات لكن قيادة قدام بيسوع كلا حاجة أنا ديري حاجة ديري قلنا جزاك الله خير وحفظك قرنت. أوكي ما حكوا قرنا حط كقرنا في حياتكم ورقة الصح. حكوا قرنا ورقة شخص وصل فيو اسمعيو وفهم كرتني واضح. يا وكتب بلا هي حفلة جامعات ولا عرفت. جامعات بس إذا السوق عبد الله يحل قد عسل. madaxweynaha Jubbaland ka qayb galaya xaflad marka xafladaas aan rabaa inaan soo ogaado adiga xilliga dhacaysa jaamacadda iska leh xaflad ay daacasho ma yaqaan xogtu u gudubtay laakiin jaamacaddi iyo waxa la rabaa in la soo helo xilliga dhacaysa anaga shaqaysanay dhacayna soo gudbi shaqada qabsanay aniga marka waan fikir marka aniga horta waan dareemay ragga saaxiibada wax ii dirayaan waxyaabaha qaar ii dirayaan inay tahay wax halaag ah halis adani oo ku fashilmi karo haddana marka waxaan isku diyaariyey xogta inaan gudbiyo habeenkaas subaxeedii ninkii degan baa waan sheekaysanay oo marka wixii ugu leeyahay waa ku casuumaya isbuuca horteena ku casuumaya jaacada balaasman ku casuumaya xaflada qabanna isaga ardayda qalin jibinaysa waa saaxiibka ardayda qalin jibinaysa laakiin jaamacadu dhigtaan Soomaali ardayda qalin jibinaysa ardayda qalin jibinaysa ku jira marka dadka loo diyaarinay in la baabi'iyo qaybkii qayb ugu yahay di baaba isma xayta qof kala dilay madaxweynaha laakiin dad dhimo doono dadka hal qof isma dhimaa meesha oo ku keen doona meesha qof baa xitaa in la geliyo ra'iis nidaamiye ah okay waa lagu casuumay marka waxaan ku yiri jaamacada xafladda qabtanaysan aan ka caawinsan marka inaan su'aalkaas si uu weydiiyo ma rabay laakiin marka ka dhigtay inaan iskuul baan dhigaa idaan ku yiri marka xafladdiina ana xaflad jaamacad waliga ma tegin marka idaan هو عسومة والله يراعي وكل من هذه كلا ده راعي مش إمامي وحول سكولك وجمع بيا أن قفت قميص كل حفلة أما أربعة كلا إسكال صف صحادي ما أربعة بحتة إيه حفلة مو صحيح هني قرمي قبل الحفلة مكان يسألني وحلقنا سنة توقف فبراير
يا لقبنا يا ما لقبنا يا ها هو الجامعة لقبنا إنسان ما ضاو أنا حكت واحد الوقت أنت صح حكتين كواليو waxaa raadinaysay jaamacadda iskale xafladda xilliga la qabanayo meesha ka dhacayso xogtu waa heshay waa la joogay ninka oday ahaan wacay waxaan ku iri jaamacadda waa plasma jaamacadda waa plasma xafladda jaamacadda qabsanaysa waa plasma xilliga la qabanayo waa 19 meesha lagu qabanayo waa daawo wakaas bilaa tafaq ninka marka odaygu wuxuu yiri waa mahadsantahay marka shukran waa mahadsantahay galab badan isoo waa galabta subaxas galabta isoo waa niyo kuwa meesha joogaan wacay oo maktab ka tirsan shaqo wax soo lagu yaqaanaa yaa wacay oo ka tirsan amniyaadka waxay u dhaheen shaqo ma qaban karno ninka uu dartay jaamacad u tiri ala jaamacad tee meesha seen guri karnaa hadda maskaxdeena waa leeyahay wiil Cabdullaahi waxaana wuxuu yiri waa jihaad waxay adirtay loo qabanaa hadda maskaxdeena kugu jirtaa wiil annagana waan ku aaminsan meesha sidee loo fulin karaa adiga wax diji meesha ma fulisan ku wuxuu yiri niyo anaga wuxuu weerar ma qaadeen oo meesha weerar jamaasa ma laakiin ninka odayga kursi ku fadhiyo yaa rabnaa qof nagu dhijiyo yaa ku dhijiyo marka ana ku dhijinay odaygu waa kay Sheekh Ahmed haye madaxweynaha la kursigiisa inuu dhijiyo marka tokadan bam marka yaa ku dhijima ku marka adiga heesaa wuxuu ninka asay marka hore inuu wax ugu cadaadiyo aniga marka waxaan raynaa marka aan isdifaac marka wuxuu yiri jaamacadda dhigataa inaad meesha laga yaqaan professional tahay kana tahay aad marka la shaqo lagu diso oo amaanay mut wuxuu meesha ida ah ma dhamay wax kasto ku baxaan soo diir bahashan adin magaalada lagu keenay inta laga soo qaaday magaalada lagu keenay aad waxa la dijiso hadarta gabdhi waxa nidaam wax dijiso sameeyay adiga isqari meesha lagu dhigi waxaan ku yiri ma sameyn karo aniga shakhsi ahaantay Cabdirasaaq Abbas ahaantay Cabdullaahi ahaantay ma sameyn karaan ku yiri xafladaas dhacayso abama ka bireeyay arrintan ninkan adiga ugu cadaadiyay ma sameyn karaan ku yiri marka wuxuu waa diyaar oo ku socon yiri laakiin wuxuu yiri ha kalaan wiciye adiga arrintan la abaabo waa soo wacnaan ku yiri rag kala kulli uu sheeg ku celiyay uu suurtagal weedana way suurtagal weedahay way suurtagal ma hayaan ku marka سلام ويري نيهو horta markaan isoo xisra gaarnay meeshan qof ismi daamiya oo meeshan qof bomba ku dhijinayo suurtagal ma meesha waxa ku xirmaan ku uri ba leer baashi sisi camera hadii waxaan ku qaaday isku dirsanaysid ba ku uri oo xitaa fuundiyo inta meesha hoos ka jeexo kursi ku dhijinayo ma suurtagal kartaa ku uri way wuxuu qof ismi daamin ka hor isnaan ku xidid suurtagelayso لكن أصلاً حقي سحوقا ويربحنا. عبدالساق كسبان جوكتها مركان واحد قيب كنا قربتي هو قال ولا يعني إن عرضي شام على الظروف كبسوا جذب وفشل مساج شكتي وحجري سيد حكت عن كوهر والركلة وقرشة سناء وقواس كور. نيجي هرت أنا واحد ما قرشي. عبدالساق كسبان جوكتها مركان واحد قيب كنا قربتي هو قال ولا يعني إن عرضي شام على الظروف كبسوا جذب وفشل مساج شكتي وحجري سيد حكت عن كوهر والركلة وقرشة سناء وقواس كور. نيجي هرت أنا واحد ما قرشي. ساعات بدن waxa u soo jeeday ana markaas macallin iskuul ah oo shaqadii caadiga ah wato hadii ana hay'ad firaaqahay waqti marka casharadii caadiga diyaariyo waxaan diyaarinay hadana oo ku dhex diyaarsanahay nidaam lagu weerari karo ciidamada ka jooga Kenya horta Kenya ka soo joogan ha wajiga soo horta adaa sabxad qaab lagu weerari karo wajiga inuu jooga maya degan yihiin marka si toos marka waxa u xaqiiqsaday inay degan yihiin ciidamada Kenya deegaanka barajoodma inay degan yihiin ciidamada fara badan
oo meesha waardiyay dekada waardiyay oo Kenyan ah oo shisheeya in meesha degan yihiin yaa marka xaqeen waxaan hore u ahay badan tagay arday jaamacad dhigta ahayd macallin iskuul ahayd yani see ku ogaatay in halka ciidanka ay degan yihiin xogta ayaa ku siiyay xogta ida inaan way ma kulata أنا الشعب أحط نوع زوجة. أفضل ليها وإنه إسكت على إدكار إدكار يقول لي ولا ضاع إدكار قصة كده. كيان جزء عرنا يقول لي كيان مش يجوا متاز يا ضفري كرا. حبت اللي ذاتك. حبت اللي أنت. حلو. أنا يرد كبد إسكت يعني لكن أنا مش شغال عمي. مسؤول حاتك تمسك قلب. قلب أنت كده. أنا من القلب هذا قلب هذا. ماشي مركو حام فوري تاج. أو ما أعرف دورك الضبع. وراح حتى فش. waxaan marka qiimeeyay meeshan ciidan la gudbin karaa hada isweydiina su'aashaas ana isweydiiyaa su'aal waxa isweydiiyaa meeshan ciidan ma ka gudbi karaa diyaanum kaas waxaan diyaarna kullu waa intimaasi ciidan weeraro weyn qaadana nin galad intaba intimaasiga dadku ma fahansana hadda aan fahansana adna fahansatay laakiin dadka kale Soomaalida kale ma taqaan faafaahin intimaasi waa nin xaradan ka soo galay قرر السكر لما أنت شخص من نقول كلام مش واحد كبر ده شخص شخصي لح وأقرب من نقول هذا ما يصير عن سنة كوجا أمر سنة أود ديارنا هي شن كم بدن كلام ما يصير شن قف شن واحد كمان خش الوقت نفتها اللي قال شن نفتها اللي قال دي متسقر حيو يشن كلام بكو قرش اسمه أنا دياري أنا كنت عيدك مهم لكن مركان النظام مركان ديار صلوا وندجستو وسيروا قل لها واحد كسر دجيو يا واحد رئان أشاب لو ذاقو واحد كسر عنك قاو وكان حق لي حيرت اللي ذا تاجنت هاي حل قلبها تاجنت هاي بورتها ولي بسارنت هاي حارت أنا حكو صباح ماشان ملقي كره يا سبحان حديث لقال مرتي ما تقدر نقارن حالك الفردا ماشي كاميرا يكون حري قصب كاميرا هن إنسا يقالن كتها إن الخيانة لقال ماشي أيوه سوفيري ماشان حبك الجوجل كرو وإنها كيف فيني حافظ ما كان تجوان قرط ولو إلا جيلي كره حلي أوري أو أرور أقرأ هذا أنا كمرة هذا كده كيان كجو لح ساعة وير الله كمرة لكن وإن حلي أرور مخرب وإن تمدك أنا عينك حين كنت أنا أضيح تعرف كسر عينك يقصد قام حياتك كأنها محربي وحير شنطة قاقلة دي أو قلع أو نكسر في لوك أسكري عن سوق وخبوط كمان يقول لي مقالة الوقت هذا مكان أنت اسمه كان دجي أو سي ماشي جوجل لها قابك حلي عن دجي إذا بدك أسأل واحد طاس أو بس أنا قلت لك وقت هذا أنا واحد دجي أو سؤال إسكو دي إيه كاس سيدا ماشي نفسه يقول كذا أنا مركز سيدا هذا الشاب كأي أقبلين بقى وأنا أمسنا أبي رجع سأ أجي أنا كسجع بدي ده يعني وحن قري وهذا أنا دجي رجع سلوس يقول كذا مقالة صار أنا وحن أباهم هاي شن قف كلام أباهم ويران شن تصقف سين كسبلي مقالة حكوا سؤال ما عسى سويدي مقالة حكوا صباح مك حيصو بحري هرتا أنت أنا كاستن دجي كور وح جاي له سيدا ما وعي نيو جانس في عمر هيام كور جانس في عمر كور كده أكره لكن يعني وأول ودقينها ماشي حنقول إن عقلنا رما والله مش رجل رقفهم أدري لما قلت رأي هنا أبي محد ودك سن وهو أشجع واحد كستو في الكوب حاي أنا نسوي دي هديتها عيد هديتها خوب هذه ماشي مقلك رام أوكي مركز صراحة أنا كدي بحان دجست أو كل إيران دجست سيد الشنقة فهم فسوا قلنا مقالك اسمه والله كان أي ما يحس شنطة صباحية أسير قرن هاي إسمي برن لها إيه إسكو برن لها قف حتى شنطة صباحية ما دي لقبته وجيب لها قوته وإذا شباب أنا عم قال اللي كان كو كرهت إنه الصمم كويس أنا إسكو ده نذا بنو عسل بيجي وحن السمي مركز هم قرطي اسمعيو شنطة قبيل أول هذا قرني هاي قرط معيدا شنطة قبيل اسمعي أول ودكتي معيدا قرط حاول ترى كشمك شتى قبيل الديوان كشتي ورشود هي الشباب رجع إيه صدر هيان شنقة سماها
haddii hal maalin wax ma soo wada galayaan moogta canugan isagoo meesha joogan aan la hadlaa rabay qofkan soo dirahay isagoo meesha joogan aan la hadlo oon dhahaa adiga horta reerkii inuu reerkaas sheego nabadoonka adiga wacaniyo nabadoonkaas yaad ugu cesaa waxaa leedahay nin reer hebel ah inay hebel baan ahay kantaroolka uga isla maxaa raadinaysay magaalo waxbarasha imaaday saas haddii nidaam noocaas meesha ku imow saas miya haa taasaan dejistay mogta intaas markaan dejistay haddana waxaan sii qorsheeyey in xaafad kasta aan kala dejiyo shanta xaafadood aan kala dejiyo carruurtan isku marna ay soo geli oo ugu yaraan ay kala dambeeyaan saddex maalin saadaab arrinta waa la wadaaga mucaad buu la sii wadaaga si jamca iga soo wacay marka dambe maxaa lagu dhamaa waxay dhaheen niyo arrintaas seed ku keenta wax noocaas adig waxay dhahay arrintu arrin fiican laakiin arrinta xaggad u marta niyo arrintaas kale waa dejiyaan ku haddii soo inay suurtageli waa laga yaabaan karo arrintaas oo diyaada in qof bini aadan khalad laga dhigo inay suurtageli waa laga yaabaa laakiin waan dejiyaan ku iri arrintii ala fiiriye waxay dhaheen qalinka kuma dugin waa kula qaateen go-aanka haa ma ka weyla qaateen xaqiiq waa waan kula qaadan dhimi waa mahadsantahay saas may ahahay waxaa diyaarsa adiga horta ciidamo ma gurin soo degin ciidamo degin ma guriyaan kuwi laakiin waxaa guraan kuwi kale oo banaanka waa guriya Soomaaliya degin oo hadda waxaa la iisoo abaabulahayay carruurtii la soo diri lahaa dhalinyarada ahaa mid kale canugaas isaga oo la ii keenayo meesha oo kismaayo imaan hayo kale waa inuusan ka weynaanin 20 ama 18 saas ku badan shaaq waxaa jiray qorshe ah in magaalada aad ka samaysaan afduub shakhsiyaad muhiim ah lagu sameynayo qorshahaas ma ka war qorshaha asaga wuu jiraa afduub loo geysan rabay qolyahan reer galbeedka oo Soomaaliya jooga oo markaas al-shabaab ay u arkaan inay yihiin dad basaasiin ama sirdoon marka inta badan waxaa laga helaa dee hoteelada laga helaa in markaas iyada inta la daba galo la ogaado la afduub cid markaas iyada fulin rabta inuu baaha yani waa waqti kaliya waxay ahayd aan adeegsan rabay bistoolada qorshihii aad ugu talagashay marka aad biskoolo isticmaasho wuxuu marka aad damacsan tahay in afduub aniga markaan al-shabaab hore oo jilib ay leeyihiin bistoolada ku baraynaa ana hore bistoolada u aqaan oo xilliga macadkaan soo bartay bistoolada iyo qoriisa loo isticmaalo laakiin bamka ma baran marka bistoolada dee markaad afduub geysanaysid ma waa qof shacab afduub kartaa laga yaabo qofkan afduubis inuu mowt ku baystay marka inta ma hoteelada waa meel amnigu iska yar badan yahay marka qofkaan dee afduubisana waxaa laga inaad gaari kala digaysid ama gaarisa qof ku geysid marka dee waa khasab inaad wareegtid ma garanaysaa inaad hubaysado waa khasab marka waxaa la afduubaya dee waa kuwaan qolyahan caddaanka waxaa weeye reer galbeedka marka in markaan afduubahayo oo kale xitaa haddii aan la baxsan waayo aan dilo oo kale nidaam noocaasa ayaan dejinay aan ku qorshaysay yaa ii qorshaynaa haddii markaas aan dad helna qasab waayo tiim i raaco oo amniga ka tirsan ilaa 4 qof oo kale oo kulli darawaliin ah oo haddii mid uu dhinto mid kale gaariga wada kalo haddii mid kale uu dhinto ilaa qofka uu dambeeya xitaa uu qofkan la baxsan karo muhiim ah in 4 qof ay badbaadaan la dhin karaa muhiimadu waxay tahay in uu badbaado maxbuuskaasi la geeyo jilib oo kale haddii hal shakhsi oo darawal bis hala badbaado ku kala hadii hal dhintay iyo qaabka looga bixin lahaa magaalada ayadan taasna kulli waa u qorsheeyay marka qaab magaalo looga baxsan lahaa marka nimanka kaa sareyno xogtaas si iyagan waa la wadaag niyo ayaga in qolyahan caddaanka ah oo kale in la qaban karo oo kale waa la wadaagay laakiin nidaamkan aan dejiyey markaas lama wadaagin oo dee xogtii inay baxdo oo kale moogto waa cabsi kale lama wadaagin oo nidaamka wax markaa u dejiyey sida magaalo looga bixi lahaa qaabkii iyo xasminta taas ayaga lama wadaagin taas marka waxaan rabaa in la wadaago tan dekada markaan fulli kadib howlgalka dekada markuu dhaca kadib waa isaga laftarkiisa bishaan dhexdeeda aan qorsheynayo soonka dhexdiisa weli qaybaha dambe aan qorsheynayo markuu dhaca kadib dee waxaa rabnaa dhahaa arrinta afduubka asugu maano qofka marka la qabto oo kalena dee qayb meel ka mid ah magaalada hal maalinka lagu hayo jilibka laga sii daayay in jilib la keenaa meelo al-shabaab haystaan qofka asaga la keenay oo kale muhiim ah in meel la magacaabo in qofkaas meelo al-shabaab haystaan la geeyey ha laga sii daayo warbaahinta si aan lagu dhex mashquulin magaalada dhexdeeda in qof lagu hayo in kale ugu dambayn
cabdirisaaq waxaanu weydiinay mar haddii la soo afjaray dhagartii uu maleegayey oo uu ku jira gacanta hay-adda nabadsugidii sirdoonka jubbaland muxuu jeclaan lahaa in dhallinyarada soomaaliyeed uu ugu baaqo dowladnimaduse muxuu ka aaminsan yahay isagoo ugu dambayn madaxda dowladda jubbaland ka codsaday in cafis loo fidiyo horta dhalinyarada Soomaaliyeed waa dhalinyaro muslim ah waxaan ugu baaqayaa in maslaxadooda ay ka shaqeeyaan waddankoodan ay jeclaadaan dowladda markaasna wixii khayr dowladda kala shaqeeyaan wata nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya maxaad ka aaminsantahay nidaam jiraan ka aaminsanahay dowladnimada Soomaaliya oo Soomaali ah in ka aaminsanahay kulli oo dowlad jirto oo hadda ciidamo leh system leh ugu dambayn madaxda dowladda Jubbaland iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda fariinta ugu dambaysa aad u diri lahayd waxaad jeclaan lahayd inaad ka codsato والله هذه قف هذا محبوس أنا هاي وهذا قاعد في الوهايو قرطة أمد علنا يا عيدك سيء اللغمين سيدي ونفسن مركوبات مركبات عطسي هذه اللي عطسه كل عطسنا هي إن حرية دي يكون أحد الوعث ها عشان ها إن اللي سيدا يودي سبحة ha yeeshee si kastaba waxay kusoo gabagaboobaysaa sheekadu in wax kasta oo ay soo abaabuleen laga soo abaabulay jirib ilaa saaka jubbada dhexe qaybo ka mid ah jubbada hoose ay ku soo dhamaadeen fashil sida aad muuqata oo hay'aduhu amniga ay markas diyaar u yihiin ay soo gabagabiyeen